أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد. kusoo dhawaada barnaamijkeenii caafimaadka ee doctor minow dabiib yaqaan. Soomaalidu waxay tidhaahdaa cagtii joogsan weydaa hee mar bay ceeb la kulantaa. Takhaatiirtuna waxay yidhaahdaan cagtii joogsan weydaa hee mar bay xanuun la kulantaa. Caawa waxaynu ka hadlaynaa barnaamij xiiso leh oo ku saabsan caga xanuunka. Dad fara badanna ay la ildaran yihiin. Muxuu yahay xanuunkan aan ka hadlayo? Xanuunada caguhu way fara badan yihiin, laakiin maanta waxaan ka hadlayaa kan ku dhaca xuubka cagta ama plantar fasciitis. Xuubka cagta oo bukada oo loo yaqaano plantar fasciitis ayaan maanta ka hadlaynaa. Xuubkani wuxuu ku dahaaran yahay cagta ka bilaaw, wuxuu ka hooseeyaa maqaarka ka bilaaw ciribta ilaa suulka iyo faraha ayuu gaaraa. Dhinaca cagta cadoo dhan ayuu qarinayaa, waxaana ujeedadiisu ay tahay in cagta uu kaalmeeyo oo marka lagu istaagsan yahay uu qabto culayskii iyo cadaadiskii ku dhacayay. Waana sidii wuxuu u shaqaynayaa barkin oo kale ayuu u yahay cagtii oo maaragtay culayskii ku dhacayay ayuu ka yaraynayaa. Xanuunkani waa xanuun dad badan ay qabaan sidan horeba u iri. Qofka markuu qabo inta badan markuu soo kaco oo tallaabooyinkii koowaad uu qaadayay ayuu wuxuu dareemayaa xanuun zaa'id ah. Wuxuu dareemi karaa qofka in cirbado lagu mudmudayo ama in midiyo lala dhacayo ayuu maaragtay xanuunka u dareemayaa. Waa xanuun zaa'id ah oo sida maaragtay midiyahaas oo kale in lala dhacayo qofka uu u sheeganayo. Wuxuuna xanuunkan yimaadaa markuu bukado xuubka cagta dahaarayo. Waxaana maaragtay qofka u nugleeya inuu ku dhaco markuu qofka socod badan, qof shaqadiisu socod badan ay u baahan tahay ama istaag badan ay u baahan tahay ama dadka orodada dhaadheer sameeya iyaguna way ku dhacdaa xanuunkani. Waxaa kaloo jirta in markuu qofka culayskiisu zaa'id yahay, takhaatiirta iyo culayska isma jeclo, mar walbana maaragtay waxaa sababa lagu leeyahay culays baa sababa, sokorta baa waxay la xiriirtaa culayska, dhiigkarka culays baa dhinac ka ah, dhabar xanuunka culays baa dhinac ka ah. Marka qof walba sidaad ku yaraan lahayd culayskaada hadduu zaa'id yahay waa inaad ku dadaashaa. Waxaa habboon qofka dherarkiisa iyo culayskiisa inay isku sargo'an yihiin, oo markaa jirkiisii iyo wadnihiisii iyo dhabarkiisii iyo cagihiisii un culays badan uusan ku dhicin. Waa arrin aad iyo aad u fara badan oo dadka marba hadduuba uu soconayo ku dhici karta. Sidee baa wax looga qaban karaa? Markuu qofka xanuunkani uu dareemo, waxaa maaragtay uu samayn karaa inuu muddo nasto. Waxa uu samayn karaa in baraf uu saaro meelaha xanuunku u badan yahay oo inta badan ciribta ah, in baraf la saaro, cagti loo dildiliigo, la tuujiyo, maaragtay la baxnaaniyo ayay u baahan tahay maadaama cagtii ay maaragtay culayskoona dhan ay hayso. Waxaa jiro jimicsi loogu talagalay cagta si maaragtay xanuunkan looga yareeyo. Haddii aad fiiriso YouTube-ka oo aad geliso xanuunka cagta ku dhaco, jimicsiga loogu talagalay, aad tiraahdo exercise for plantar fasciitis, waxaa ku soo baxaya klibyo badan, fiidiyoyaal badan ayaa ku soo baxaya oo ku tusaya sida loo sameynayo jimicsiga oo loogu daaweynayo ama lagu baxnaaninayo xanuun ku dhacaya cagta cad xuubkeeda. Qofka wuxuu qaadan karaa xanuun baabiye muddo kooban ayuu qaadan karaa. In la iska badiyo muddo dheer uu iska qaato ma wanaagsana. Haddii xanuunka uu kusii bato, qofka wuxuu ka codsan karaa takhtarkiisa inuu u gudbiyo physical therapist ama dadka ku takhasusay cilaajka dabiiciga ah. Qofka maaragtay si uu uga hortago xanuunkan ama hadduu qababa si uu dhibaatadiisa u yareeyo, wuxuu samayn karaa inuu kabo jurmi fiican leh oo celinaya oo barkin fiican leh ay culayskina ka celinaya culayska jirkiisii cagti aan aad ugu dhicin oo kaalmo u noqonayso inuu qaato kabo jurmi fiican leh. Haddii
qofka maaragtay koba taaka dheer la uu qaato wuxuu u nuglaanayaa in cudurkani xanuunkani cagta xuubkeeda ku dhacaya inuu qofka maaragtay uu kusoo degdego. sidoo kale kobaha khafiifka ah iyagana ma wanaagsana. waxaa taa kasii daran dadka cagacadaanta socda, meel dhagaxyo ku socda ama meel simanoo adag markuu ku soconaya xataa qofka wuxuu u nuglaanayaa in xuubkii cagta uu ka bukado oo markaa xanuunkii uu ku dhaco. soomaalida inta badan waxaan arkay markay guryahooda joogaan, khaasatan markay jikada ka shaqaynayaan ama ka adeeganayaan, inay cagacadaan taagan yihiin ama ku socdaan. taana waa arrin qaldan oo waxay qofka u nuglaynaysaa in xanuunkii uu ku dhaco. marka waxaa habboon in qofka xataa ha noqoto dacas allaha ka dhigay inuu dacas isticmaalo. haddii lagu diro takhaatiirta cagaha ku takhasusay, podiatrist loo yaqaano, mararka qaarkood waxay soo jeedinayaan in cirbad lagugu diro oo steroid ka samaysan inta badan. laakiin aad baan ugu soo horjeedaa arrintaa, waayo steroidka waxay sii khafiifinayaan xuubka cagta oo dhibaatadii ma xalinayaan, oo marka maalmo yar xanuunka uu kaa istaago ayaa haddana isagoo kasii daray ayuu kugu soo noqon karaa. marka marna ha ka yeelin in ciribta ama cagta lagaaga duro. ugu dambeyntii waxaan mar kale idin xasuusinayaa inaad ku dadaashaan in kobo fiican aad raadsataan, iyo in maaragtay markaad gurigaada joogtid, khaasatan markaad jikada ka shaqaynaysid ama aad adeeganaysid, inaad maaragtay isticmaasho kobo, inaad isticmaasho oo cagacadaanta aad ka fogaato. caawa halkaa hanoo joogto. intaan barnaamij kale oo xiiso leh aynu ku kulmayno ee Dr. Minow dabiib yaqaan, waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.